taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jenaraal Odago Yuusuf Raga ayaa diiday in xilka laga qaado ciidan urursi ayaa ka socda deegaanka Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaana la saftay taliyaha iyagoo ku gacan sayray qorshe Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka uga qaadayo. sheegaraya Soomaaliya warkan weyn waxaa idinkula wadaagi doonaa ciidan urursi ka socda deegaanka Cadale iyo saraakiisha ciidanka oo gadood sameeyay kana soo horjeestay in taliyahooda xilka laga qaado. warbixinta idinkula wadaagi doonaa caro ka dhalatay xilka qaadis lagu sameynayo taliyaha Jenaraal Odago Yuusuf Raga iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo arrintaasi ku gacan sayray taliyahana ku wargeliyay inuusan xilka wareejin ayna difaac iyagu u noqonayaan maxaa ka socda deegaanka Cadale. marka hore warbixintan sheegareeya idinko meel walba gaarsiinaya sidoo kale qaybta afaalada ayaad nagula wadaagi kartaan aragtidiina. waa hagaagan ku bilaabo sidaan ku helin xogo kala duwan oo naga soo gaaraya deegaano ka tirsan gobolada kala duwan ee dalka gaar ahaan deegaanka Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ku soo waramaya in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jenaraal Odago Yuusuf Raga oo ku gacan sayray xilka qaadis uu qorsheynay inuu Xasan Sheekh Maxamuud ku sameeyay isagoo ku wargeliyay in xilligan aysan ahayn waqti taliska ciidanka xilka laga qaado ay tahay waqti dagaal loona baahan yahay in khidada dagaal ee hadda ciidanku howlgelayaan raggii dejiyay ay sidooda markaasi usii socdaan oo aan waxba laga bedelin haddii kale oy habacsanaan baahsani ku imaan doonto hanaanka ciidanka qalabka sida u howlgelayaan. saraakiisha ciidanka ayaa arrintan iyaguna ka beediday iyaga oo ku wargeliyay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya inay arrintaasi tahay mid aan marnaba la qaadin karin. dhinaca kale warar kala duwan laga soo gaaraya deegaanka Cadale ayaa kusoo waramaya in taliyuhu markaasi urursi bilaabay iyadoo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay markaasi garab siiyaan taliyaha aysan macquul ahayn in xilligan xilka wareejiyo. wararka al-shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafay dagaal adag wajahay iyadoo saraakiisha ciidanka dalka ee markaasi howlgallada hogaaminaya ay sheegeen inay yihiin rag khibrad badan iyadoo guulaha al-shabaab laga soo hooyey ay muujinayaan in kooxda ay wajahday dagaal adag oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay abaabuleen. wararka al-shabaab ayaa la duldhigay madaxdooda lacago malaayiin dollar si loo soo qabto arrintaasi ayaana keentay in dadaalada ay bilowdo dowladda. waaxda abaalmarinta dhinaca cadaaladda ee Mareykanka ayaa shaacisay magacyada 3 ka tirsan hoggaanka ugu sarreeya ururka al-shabaab ay madaxdooda duldhigtay abaalmarin lacageed oo dhan $10 milyan oo dollarka Mareykanka. lacagta abaalmarinta ayaa la siin doonaa qof walba oo keena macluumaad horseedi kara in la ogaado halka ay raggaasi ku sugan yihiin. qoraal soo dhigay bogga Twitter-ka ee waaxdan ayaa sidoo kale lagu faafiyay Twitter-ka safaaradda Mareykanka ee Nairobi waxaana lagu yiri sidan: ilaa iyo 10 milyan ayaa lagu bixinayaa xogta ku saabsan ragga kale ah Mahad Karatay, Axmed Diiriye iyo sidoo kale Jihaada Mustafa kuwaasoo ka lug lahaa weeraro badan oo lagu diray kumanaan qof gudaha Soomaaliya, Kenya iyo dalal kale. ma garanaysaa halka ay isku qaranayaan noo soo dir farfiiq ayaa lagu yiri warka ka soo baxay waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegay in qofka la soo wadaaga macluumaadka shakhsiyaadkan uu heli doono lacagtaasi 10 milyan oo dollar ah. Mareykanka ayaa abaalmarin ahaan u siinaysa ciddii ka caawisa burburinta shabakada dhinaca dhaqaalaha u qaabilsan al-shabaab. sheegaray xagaan qad falan guriga wadaag aragtidiina tan iyo kan waddan la edgeliyo.